kusoo dhawaada Markabley Media qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin Hargeysa qoys dhamaantood ku dhintay guri kusoo dumay warbixin dheeraad ah ayaan idin kaga haynaa wararka kale ee warkeenana waxa kamid ah wasiiro hortagay golaha shacabka su'aalo adagna la weydiiyay Cabdiraxmaan Cirro oo beesha caalamka u gudbiyay arrin halis ku ah Muuse Biixi xog ku saabsan beesha caalamka oo dawladda federaalka siisay digniin la xiriirta doorashada galmudug siyaasi ku xiran magaalada Boosaaso oo wajahaya xaalad caafimaad weerar dad lagu dilay oo ka dhacay gobolka Mudug wararka dibadda warka Markabley Media idin haysana waxa kamid ah ku dhawaad 20 ruux oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Syria badaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Markabley Media haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dhagan baleelkana furo si warbixinadeena iyo wararkeena aysan ku seegin waa 8 bisha December 2019 ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aan ku bilowno warkeena Hargeysa qoysas dhamaantood ku dhintay guri ku dumay xaafada Birjeex ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka dhacay arin murugo leh kadib markii qoys ka koobnaa 4 ruux ay dhamaantood ku geeriyoodeen gurigoodii oo ku soo dumay qoyska oo ka koobnaa 2 caruur ah aabahood iyo hooyadii reerka oo sida la sheegay xaamilo ahayd ayaa dhamaantood ku dhintay gurigooda oo ku soo dumay waxaana socda gurmadka meydkooda looga soo saarayo dhismaha dumay laamaha gurmadka degdega ah ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiin iyo shacab ayaa gaaray goobta ay dhacdadaasi ka dhacday oo ah xaafada Birjeex xubno ka tirsan maamulka gobolka Maroodijeex oo goobta gaaray ayaa warbaahinta u sheegay in ay xaqiijiyeen geerida dhammaan dadka uu dhismaha ku dumay waagaag wixii warar ah ee ku soo kordhana dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa wasiiro hortagay golaha shacabka ayaa su'aalo adag la weydiinaya waxa si rasmi ah u furmay kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka kaasi oo ay ka qayb galayaan wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo taliyaha ciidanka booliska Cabdi Xasan Xijaar kulanka ayaa waxa soo xaadiray 120 mudane oo ka tirsan golaha shacabka iyadoona uu shir gudoominayo ku-xigeenka koobaad ee golaha Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey xubnahan ayaa su'aalo adag laga weydiiyay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha amniga iyo sidoo kale xayiraadii dhawaan lagu sameeyay madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ayaa wasiirada wax ka weydiinayo is-hortaagii lagu sameeyay xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo doonaysay inay u baxdo degmada Luuq ee gobolka Gado oo ah deegaan doorashadeeda kulanka golaha shacabka ee looga yeeray wasiirka amniga gudaha iyo midka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay taagnaayeen xiisado siyaasadeed oo quseeya shaqooyinka labadaasi wasaaradood dhanka iyo Somaliland haddii aan eegno Cabdiraxmaan Cirro ayaa beesha caalamka u gudbiyay arrin halis ku ah Muuse Biixi gudoomiyaha xisbiga wadani ee Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro oo kulan gaar ah Nairobi kula qaatay wakiilada midowga Yurub iyo danjire ku-xigeenka Mareykanka ayaa kala hadlay xaaladda maamulkaasi ugu horeyn Cirro ayaa u sheegay xubnahaasi in Somaliland oo muddo ku jirtay deganaansho ay hadda ku socoto dagaal sokeeye sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi in uu ka shaqeynayo nabadgelyo daro isla markaana uu doonayo in uu dagaal iyo fowdo ay dib ugu laabato Somaliland Muuse waxa uu doonayaa in uu gaaro ahdaaf uusan ku gaarin dagaalkii sokeeye ee sanadkii 1994 taas waxa ay ka soo horjeedaa rabitaanka dadka Somaliland ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro dhinaca kale ergo ka socota xubnaha beesha caalamka ayaa 18 bishan booqasho ku tagi doono Somaliland wararka u xaqiijiyeen ilo ku dhow kulanka dhaxmaray Cirro iyo wakiilada midowga Yurub iyo danjire ku-xigeenka dalka Mareykanka sidoo kale ilo wareedyada aan la hadalnay ayaa sheegayo in safarka ergadaasi uu qaadan
qaban doono muddo 2 cisho ah isla markaana ay la kulmi doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka maamulka gooni isutaaga ee Somaliland xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahayd mid kacsan taasi oo ka sii dartay kadib markii golaha guurtida iyo kuwa wakiilada ee maamulkaasi ay sameysteen muddo kororsi cusub oo ay ka biyadiidsan yihiin hoggaanka xisbiyada haatanna xog ku saabsan beesha caalamka ayaa dowladda federaalka siisay digniin la xiriirta doorashada Galmudug beesha caalamka ayaa uga digtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya in ay si xun loo maareeyo soo xulista xildhibaanada doorashada Galmudug ee wasaaradda diyaarinteeda ay ka wado magaalada Dhuusamareeb saraakiil ka tirsan wasaaradda iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa noo xaqiijiyay in xubno ka tirsan beesha caalamka ee xiriir la sameeyeen wasiirka arrimaha gudaha una sheegeen in la joojiyo wax loogu yeeray boob iyo xoog wax ku maalid oo ka socda Dhuusamareeb kuwaasi oo la sheegay in ay wadaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo guddiga farsamada ee dhismaha Galmudug beesha caalamka ayaa si degdeg ah u soo farigelisay doorashada markii la shaaciyay liiska odayaasha waxayna ka digtay in Dhuusamareeb ka dhacdo doorashadii Baydhabo oo kale ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo arintan xogogaal u ah waxay soo jeediyeen in la dhaqan geliyo rabitaanka dadka deegaanka iyo in la qabto doorasho xor ah oo aan ku jirin xoog iyo wax isdawamarin tii ka dhacday Baydhabo ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanka sida aan xogta ku helnay waxa dhawaan la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay gaaraan xubno ka socda beesha caalamka isla markaana ay u kurgalaan sida ay u socoto doorashada Galmudug xubnahan ayaa la kulmi doono odayaasha dhaqanka Ahlusunna iyo qaybaha bulshada iyadoo sidoo kale la kulmi doono dowladda iyo xubnaha musharaxiinta iyo xubnaha mucaaradka ah ee deegaanka laga soo doortay kuwaas oo u badnaan doono xildhibaanada Soomaaliya sida ay noo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ay hadda hakad ku jirto soo xulista baarlamaanka Galmudug isla markaana la sugayo xubnaha beesha caalamka ee ku wajahan Galmudug xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale la filayaa in ay goobjoog u noqdaan heshiis cusub oo la filayo in ay kala saxiixdaan dowladda iyo Ahlusunna kaasi oo Ahlusunna loogu ogolaanayo soo xulista qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug siyaasi ku xiran magaalada Boosaaso ayaa wajahayo xaalad caafimaad saraakiil ciidan oo diiday in magacyadooda la xigto ayaa warbaahinta deegaanada Puntland u sheegay in Dr. Muuse Cali Jaamac uu ku xanuunsan yahay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso oo maalmihii la soo dhaafay uu ku xirnaa sargaal ka tirsan ilaalada xabsiga ayaa sheegay in muddo 3 jeer ah uu xabsiga ku xanuunsaday siyaasi Muuse Cali Jaamac isla markaana aan hal mar xataa loo fidin wax gargaar caafimaad sidoo kale qaar ka mid ah dadka sida aadka ugu dhow Dr. Muuse Cali ayaa sheegay in xanuun dhowr jeer soo wajahay siyaasigaasi aan marnaba loo fidin wax gargaar caafimaad ah iyagoo walaac ka muujiyay caburin ay sheegeen inay xukuumadda madaxweyne Dani kula dhaqmayso waxgaradka gobolka Bari xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso waxaa hadda ku xiran siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo 4 nabadoon oo dhammaantood loo haysto dhaliilo ay u jeediyeen heshiisyo xukuumadda Puntland kula jirto shirkado laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta ay ugu horeyso DP World dhanka kale tan weerar dad lagu dilay ayaa ka dhacay gobolka Mudug wararka aan ka helayno gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyad hubeysan dad shacab ah ku rasaasayeen deegaan lagu magacaabo Dagaari oo dhaca koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dablay hubeysan ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen dadkaasi gaariga ayaa ka baxay deegaanka
Galinsoor wuxuuna ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana la sheegay in ay goobta iskaga baxsadeen kooxdii falkaasi ka dambeysay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa haatan lagu dabiibayaa isbitaalada magaalada Gaalkacyo waxaana deegaanka Dagaari oo falkan uu ka dhacay gaaray ciidamo booliska maamulka Galmudug sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan waxayna ciidamadu deegaankaasi iyo nawaaxigeeda ka wadaan baadigoobka kooxdii ka dambeysay falkaasi daawadayaal haatanna akhbaaraadka caalamka ku dhawaad 20 ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Syria ku dhawaad 18 ruux ayaa ku dhimatay weerar dhanka cirka ahaa oo ka dhacay waqooyi galbeed dalka Syria duqeymaha oo ay geysteen dawladda Syria oo taageero ka helaysa diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ayaa si gaar ah kaga dhacay gobolka Idlib dawladda Syria ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay isku dayeysay in ay dib u soo celiso xarumaha ay fallaagada dawladda ka soo horjeeda kaga sugan yihiin gobolka urur u dooda xuquuqda aadanaha fadhigiisuna uu yahay magaalada London ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaari karto ilaa 20 ruux warkii oo aad kala socoteen Markabley Media aqaarta qiimaha iyo qadarinta mudan xilligan waa naga inta tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah